كانوا حيلنا يهبشوا حولاتها يو حلبان حرمي وحفلنا قاقودو كانوا حيلنا يهبشوا حولاتها يو حلبان حرمي وحفلنا قاقودو حني بلا مرة بلشة حوتي وحطاي حكومي تتكلم حستو حني بلا مرة بلشة حوتي وحطاي حكومي برديري وحمري وبكل حساب ذنب اللمبة ضطهاي حريب حرت برديري وحمري وبكل حساب ذنب اللمبة ضطهاي حريب حرفني ما هنلاهين ما حكومها بلشة حلو دلالك يوهو حلك ناقا قدول دك حدك 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 حربي وسوق شو حفت ديك اسمها يا ضطاي حصوص صادوا حدك تاجرني حدك قرب كتاجرنا حدك والله بقولكين هاينا حدك رارج بلان قرب كتاجرنا حدك ما أنت ما يكين موقت قبيل ويبينه تاجرنا وأظن كسودوياي وقبيل بمشي كما كمان حدك والله مقام ما أنا ومقابل كنا شعرين مشرحين مقابل كنا شعرين لكن أساس كان شعليسية برشا صومالية برشا شو بلان أساس شعليسية ما أنت أنا والله الرئاسة دتك نقعلية عبد الرشيد صادوا وحان رباه inaan u mahadceliyo bulshadan wanaagsan ee quruxda badan ee sida sharafta leh ee quruxda badan ee qiimaha badan u soo dhaweysay musharax Cabdirashiid Maxamed Xidig niyow waxay ila tahay Ilaahay baa ku jecel ummadan anagu inta badan uma yeelin Ilaahay iyo hamigaaga baa ku siiyay aad baad u mahadsantihiin dhammaan soo dhawow musharax soo dhawow aad baan ugu faraxsanahay maanta sida quruxda badan ee u soo dhaweynay xildhibaan Xidig horta laba suurtagal ma noqonayso farmaajo tartamaya xildhibaan Xidigna ma soo bixin kala daaya wax isqaadan karo ma aha ninka Muqdisho waa mar walba Jubbaland dawladda imaato waa lagu soo duulaa ninka ka hor taagan inay fashilmato Jubbaland guuleysato suurtagalina waa Xidig adduunyada media iyo af bay noqotay ragana maanta afku wax ku kala cunaya afku iskaga celiya waa ninka kaliya maanta xinigiisa banaanka yaalaan oo iska celinaya umada qofkii ku soo xadgudba xaqii Jubbaland waxaan leenahay xildhibaan garabkaaga taaganahay waan ku soo dhaweynaynaa insha Allah isku darsaday geesinimo deeqsinimo xilkasnimo iyo wadaninimo anigoo ah uradka ogaadeen siina muqaabul ah oo reesacada Xidig kursiga waan siin xildhibaan ku soo dhawow xilkan aad maanta raadinaysid ee aan u matalaysid kursiga xildhibaannimada waxaan ku raadinaynaa sanadkan xildhibaan wax ka badan aan noqoto insha Allah haddii Ilaahay idmo haddaan haweenka reer Jubbaland nahay waxaan saaka ilaa saacada u taagan oo laba bari aan kugu dabaaldegayna magaaladan aan u diyaar garoobayna inaad noogu timaado halkan aan ku soo dhaweyno Cabdirashiid Maxamed Xidig haddaan wax yar dul istaagoon waa ninkii wadanka xaaladda markay murugtay ee madaxa la isla galay ee kuraasta wiilasha ilma adeerta ah ay kuraasta wada damceen ninkii u tanaasulay dalkiisa iyo dadkiisa u tanaasulay waay waa bilaa shuruud la'aan damcay bilaa
bilaa shuruud la'aan buu heshiiska ku qaatay oo jubbaland maalintay dhibaatada iyo murugta haysay go'aansaday inaanay xabad ka dhicin oo la isku dagaalin oo reerkan ama reer jubbaland ay xabadna isku ridin ninka go'aansada waaye mudane xildhibaan ku soo dhowow magaaladaadii insha allah xilkana gacantaada ku jiraa biidnillaahi kariim waxaad aad noo weydiiseen war maqaamulow kursiga bixiya war waana siin jirnay waana siinaynaa waana la jecelnahay laakiin waxaa meesha ku jirta oo nagargina nasiibkiisa ma xumaan jirin allah maantana ilaah waa xumayni allaha siiyo annaguna inaannu siinno waannu jecelnahay xarbi waad soo gasho xeebta dheere kismaayaadu tahay xasuus xirfadnimahan lahayn ma xukumaha bulshe xeer u dhalaalkiyow xilka naga gudoon xirfadnimahan lahayn ma xukumaha bulshe xeer u dhalaalkiyow xilka naga gudoon xidig 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 marka koowaad juhdiga badan ee iyo aad bixiseen waan idinka mahad celinayaa aad iyo aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa maanta waa maalin muhiim ah aniga shakhsiyan ii ah aan ku faraxsanahay taasoo saldhig ay u tahay inaad maanta dirteen farriin muuqata haddaad tihiin shacabka reer jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo idinkoon u kala hadhin qoys iyo qabiil iyo reer iyo degmo midna inaad muujiseen rabitaankiinna inaad muujiseen dareenkiinna inaad muujiseen xaaladdan maanta taagan sida looga gudbi karo runtii ma ahayn hawl yar mana ahaa wax ciyaar lagu keenay waxaan markaa jeclaan lahaa mar labaad iyo mar saddexaad ba inaan idinka mahad celiyo intaa markaan ka gudbo walaalayaal aniga maanta waxaad runtii ii muujiseen rabitaan iyo kalsooni iyo dhiirigelin taas oo saldhig ku bays garaysan wax kastaa waa inuu leeyahay saldhig iyo bays dalkan aynu joogno soomaaliya waxay kala yeelatay maamullo reer jubbaland maamulkan ay leeyihiin meeshuu ka soo bilaabmayna waynu ogeyn ku joogay iyo ku ka maqnaaba meesha uu maanta marayana waan ognahay inta u dhaxaysa wixii aan soo marnayna waan garanaynaa maanta meesha ay maraysa waxay u baahan tahay in dhidibada loo adkeeyo xilliyo badan oo la soo maray oo horumar in laga shaqeeyo ay ahayd waxaa lagu mashquulsanaa mushkulad kale oo difaaciddeeda iyo maxaan ku idhaahdaa hirgelinteeda ood ogeydeen taariikhihii soomaaliya soo maray iyo jubbaland markay dhisantay 2013 inta u dhaxaysay marxaladaha aan soo marnay waan garanaynaa waa run intaa xildhibaanada idin matalaan ku jiray ee federaalka jooga laakiin waxaan ku faraxsanahay dhinaceenna inaan la idinka soo dhicin wixii federaalka ka imaanahayey wax kastuu ahaa inaan laydinka soo dhicin ee ay ilaa hadda xamar soo dhaafi la'yihiin taa macnaheedu waxay tahay annagu haddaan nahay xildhibaanadii federaalka eed xamar u dirsateen waa gudannay qofba door kastaba ha ku lahaadee waa gudannay kaalintayadii horumarinta iyo hawlaha kale ee dadku u baahan yihiin waa u gudbi doonnaa
mahmaha Soomaaliyeed bay ahayd fallaadha isha iyo tasalka teenkaasiiba waxay tahay tasalka in laga siibo horta fadhiisato sida mahmaadu sheegayso salku waa Jubbaland marka kadib baan waxa kale u gudbi doonaa jamaama xoreynteeda bu'aala aadideeda badhaadha aadideeda iyo xoreynteeda xagar iyo maxaan ku idhaahdaa jilib iyo halkaas aaditaankooda iyo saakow waa u gudbi doonaa laakiin horta aan u gudubnayso inaan fadhiisanno ma annagu waxaan ka shaqaynaynaa fadhigii sidaas darteed cid kasta oo cid ka fikir duwan waxay xaq u leedahay in waqti la siiyo waqtiguna uu baro qofkuna uu fahmo waxaas haddii uu maanta doonayey ama damaaciyey ama oo xaqba u leeyahay laakiin oo lagu qabsado ama la yidhaahdo kadaa inuu yidhaahdo waaya waqtigu waa badan yahay anigu waxaan ahay musharax xamar baan idiin fadhiyey ani iyo dad kale dumar iyo rag bale maanta ma dhahaysaan xamar baad kaalintiinnii ka soo bixi weydeenoo waa naloo ka soo dhacay cid nagu eedaynaysa miyaa jirta laakiin waxaa nalagu eedeeyaa maxaad wax uga qaban weydeen deegaanada kale soo maaha haddee dagaal baan ku jirna xaggan aan ku mashquulsanayno horta fallaadhii salkaan idinka bixinayno midda isha waa u gudbi doonaa ha la gaadho marka aan taa ka soo gudubno oo xaggaasi ay noqoto war xaggaa ciidan cadow inagagama soo socdo markaasaynu waxa kale u gudbaynaa halkaa marka ay marayso maanta waxa taagani waa doorasho Jubbalanow ma maqlaysaan reer Jubballanow ama maqaabul ha ahaadaan ama beelaha kale ee maxaan ku idhahdaa reer Jubbaland ha noqdaan annaga kaalintayadii waa soo gudanay idinka tiinni baa taal labaad mid yeelaysaan inaad isu dhiibtaan xamar isku celisaan oo haddana weerarkii iyo qayladii meesha ka soo bilaabato iyo inaad la timaadaan system adag oo waxaa xamar ka jira wax ka beddela idinkuna aad nabad u fadhiisataan oo markaa aan aadno horumarka laami dhisidda iyo maxaan ku idhaahdaa jidadka iyo magaalooyinka kale xoreyntoodii aan aadno haddaadse maanta Jubbaland baa la joogaa waxa ka socda waa la soconnaa xildhibaanaa laga rabaa xilligan maanta ahna qof dhuuman kara ma jiro qofkii isku daya inuu wax khayaameeyana hal wax ma khayaamayn karo qofkii raba inuu noo dhuunto oo intuu xildhibaan naga qaato haddana uu u codeeyo qof hadhowdii Jubbaland dhib ku keenaya haddee reer Jubbaland bay u taallaa waxaa soo hadhay kuraasta ama anigu kursiga aan doonayo anigu kursigaas waa hayey haddii inta la fadhiisto oo maxaan ku idhaahdaa la fadhiisto kursigii soo dhiib oo iska joog la dhahana diyaar baan u ahay haddii hay la yidhaahdana diyaar baan u ahay laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego kursigaas dabcan maqaabul baa ku tartamahaya laakiin kursigaas aniga waxaa igula tartamahaya nin la yidhaha farmaajo ma aha cid kale igulama tartamayso kursiga aniga farmaajoa ku tartamayno kismaayuuna yaallaa marka de kismaayo hadduu farmaajo igaga helo codka uu igaga helo kismaayo ma leexleexanayo miiska halkaasaan saaraya taa idinka idiin taalla hadday maqaabul tahay iyo hadday kuumadaha kale tahay iyo hadday reer Jubbaland tahay idinka idiin taalla mana aha wax qarsoon waadna ogtihiin kulligiin waad ogtihiin qof aan ogeyn idinkaay ma jiro waxaa kaloo ku soo gunaanadayaa laakiin cadow baa meeshii ka imaanaya inaan cadow ka imaanin aan ka wada shaqayno waxaan u baahannahay gabdhaha iyo odayaasha iyo dadka reer Jubbaland inay nabad ku seexdaan oo nabad ku naalloodaan intaa waxaa dheer maanta looma baahna mushkulad lagu abuurahayo ama lagu abaabulahayo maamulka Jubbaland in ama caqabad lagu kiciyo ama lala dagaalamo ama xasarad lagu kiciyo looma baahna
waxaa loo baahan yahay doorashaa jirta qof waliba nasiibkiisa iyo sistamkiisa iyo hadduu maxaanku dhaha badeeco wato badeecadiisa inuu gato oo uusan cidna abaabulin beelo iyo dad la leeyahay maxaanku idhaahdaa maamulka in lagu kiciyo wax loo baahan yahayna ma aha wax la qaadan karana ma aha dadku waa tartami karaan waa kuraasta waa lagu hadda waa la tartamahaya tartanku markuu dhammaado waa dhammaatay anigu isbeddel doon baan ahaa waxaan doonayay inaan madaxweyne axmed maxamed islaam bedelo wax la qarinaayo ma aha markaan arkay xaaladda iyo siday tahay iyo waxa ka soo socda siduu u eg yahay ma aha inaan la heshiiyey waa isu dhiibay walaalkaa qofka ka fiican ood isu dhiibi kartaana ma jiro ceebna ma aha qofkii ceeb u yaqaana asaga u taalla waxaa loo baahan yahay marka sistamkeennan inaan ilaashanno odayaasha dhaqanka iyo gabdhaha iyo haweenku inay maamulka iyo odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta kala shaqeeyaan dad nadiifa oo berrita ay isku hadlayn karaan inuu meeshaa tago lacagaha laga soo qaaday meelaha kala duwan ee kismaayo imaanaya qofkii lacag loo keeno ha qaato qofkii lacag loo keeno ha qaato laakiin intaa yartaa qofkii jubbaland ka iibsanayo aday ku iibsanayo aday kuu taallaa berritana inaad ama qaxdo ama welwasho ama dhibaatooto ha ka shallaayin lacagta idinkaa iskale soomaali baa lagu soo qaaday qof kasta ha loo soo dhiibo lacag miya haa qaata laakiin ka fakera berrita iyo hawshiinna iyo horumarkiinna ka fakera oo taa aan ka fakero mana ku tartamayno maxaanku idhaahdaa lacago meelo kale laga keenay annagu meesha kuma tartamayno lacagta qaata weliba markaad qaataan markaad lacagta qaadataan xoogaa noo keena intaasna sameeya waa mahadsantihin